ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xiisad dagaalo hub aruursiya oo ka taagan degmada Ceelafweyne, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya oo gaaray Kismaayo, xilli la sheegay sirdoon Itoobiyaan inay halkaasi gaareen. Wararkii ugu dambeeyay ee magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, Cirro oo si kala u dhigay kulankii Muuse Biixi iyo wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ee Sacuudiga, Korneel Carro oo shaaciyay 3 qodob uu kula heshiinayo Somaliland. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan hadduu ay beedmo. markaani u diyaar garooba qodobadaas oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku bilownay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland si ay ula socdaan howlaha doorashooyinka Jubbaland. xildhibaanadani ayaa la sheegay in ay halkani ku yimaadeen la socodka shaqada doorashada Jubbaland iyaga oo ka digay in faragelin lagu sameeyo howlaha socda, waxayna u mahadceliyeen guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka shaqada adag ay hayaan. marka laga soo tago socdaalka xildhibaanadani, dowladda federaalka ayaa u muuqata in ay la dhacsaneen sida ay u socdaan, sidaasi oo kalena beesha caalamka ayaan iyaguna ka hadal xildhibaanada la dhaariyay iyo jadwalka doorashada. dhinaca kalena wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay ka soo degeen saraakiil dhinaca sirdoonka oo ka soo jeeda dowladda Itoobiya, kuwaasi oo doonaya in ay galaan gal ku yeeshaan doorashada. saraakiishani ayaa la sheegay in shalay qaab qarsoodi ah ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay kulamo kula qaadan doonaan Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxaan maanta aan kusoo dhaweynaynaa garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan International Airport ee magaalada Kismaayo wafdi ka kooban labada aqal xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo u badan gudiyada fulinta gudiyada joogtada ah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kusoo dhaweyno halkan ayagoo muujinaya runtii iskaashiga ka dhaxaynaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa heerkii ugu dambeeyay ee la tashiyada ciddii loo magacaabi lahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho la leh waxgaradka siyaasiyiinta iyo qeybaha kale ee bulshada. wararka ayaa sheegaya in la filayo in toddobaadkani dhammaadkiisa lagu dhawaaqo gudoomiyaha cusub ee musharaxiinta dhowrka ee dadaalka ku jiraan sidii ay u hanan lahaayeen. warar aad loogu kalsoon yahay ayaa sheegaya in la filayo in 3 cisho gudahooda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku magacaabo digreeto mas'uulka cusub ee qaban doona xilka gobolka Banaadir. musharaxiin cusub ayaa ku soo biiray kuwii hore, waxaana musharaxiinta ka soo muuqday ka mid ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo saacadihii ugu dambeeyay la hadalheeyay inkastoo aysan muuqan ilaa iyo hadda ololo xoogan dhinaca wasiirka ka socda. hase ahaatee xarunta madaxtooyada ayaa aad loo hadal hayaa. waxaa sidoo kale xubno loolanka soo galay isna ka mid ahaa xildhibaan Cabdullaahi Carabow iyo siyaasiga Cabdullaahi Jiinow. shakhsiyaadka horay loolankay ugu jiray ayaa waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey oo hadda ah la taliyaha dhinaca sharciga ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, horeyna u soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka xilligani. dhinaca kale waxaa aad loo hadal hayaa Axmed Maxamuud Washington oo hadda ah maareeyaha dekedda Muqdisho, isagana rajadiisa in xilkani loo magacaabo waxaa la leeyahay aad ayay u sarreysaa, wuxuuna saaxiib dhow la yahay madaxweyne Farmaajo. Washington wuxuu horay uga mid ahaa musharaxiintii gudoomiyaha gobolka Banaadir ka hor inta aanan loo magacaabin allaha u naxariistay injineeriisow. hase ahaatee markii dambe loo magacaabay maareeyaha dekedda Muqdisho. waxaa sidoo kale musharaxiinta ka mid ahaa agaasimaha gaadiidka Cali Gacan Gaabow, Cumar Qaanso, gudoomiyaha degmada Wadajir balse xilka laga qaaday. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa ka hadlay kulan ay habeen hore ku yeesheen dalka Sacuudiga madaxweynaha Somaliland iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. gudoomiye Cirro ayaa kulankaasi ku tilmaamay mid soo ifbaxaya waxyaabo uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ku dhaleeceyn jiray xisbiga mucaaradka ee wadani. Cirro ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kulankaasi uusan wax saameyn ah ku yeelanaynin midnimada shacabka Somaliland iyo rabitaanka gooni isku taaga,
isaga oona hoosta ka xariiqay in marnaba ka xisbi ahaan aysan ka suuroobin inay dhahaan qof Somaliland ah waa Soomaali weyn. Soomaalidu waxay tiraahdaa inaad saama jiido saandhaq tirasho kala daa, marka waxay ila tahay way caddahay shacabka reer Somaliland waa reer Somaliland ayuu yiri gudoomiye Ciro. Wuxuu intaasi raaciyay anagu waa Soomaali weyn odhan mayno, laakiin waxay ka muuqataa ficilladooda waxay dadka ku caayaan in ay sameeyaan ceeb bay ku tahay ayuu yiri. Soomaalidu waxay tiraahdaa inaad saama jiidiyo saandhaq tirasho kala daa, marka waxay ila tahay way caddahay shacbiga reer Somaliland waa reer Somaliland, annagu waa Soomaali weyn odhan mayno, laakiin waxay ka muuqataa ficilkooda wixii ay dadka ku caayeen in iyagu sameeyaan ceeb bay ku tahay. Wararka laga helayo deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxayso laba maleeshiyaad beeleed. Xiisadani ayaa ka dambeysay kadib markii 2 maalin ka hor maleeshiyaad hubaysani ay rasaas ku fureen goob kaalin shidaal ah, markaana rasaastaasi ay ku geeriyoodeen 7 ruux 4 ka mid ahi ay haween ahaayeen. Mid ka mid ah dadka deegaanka Ceel Afweyne ayaa sheegay in maleeshiyaadka ka soo kala jeeda dadkii la dilay iyo kuwii ka dambeeyay dilka ay isku hub aroorsanayaan lagana cabsi qabo in ay dagaalamaan. Deegaanka Ceel Afweyne ayaa waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland, hase yeeshee dhowr mar ayay ku fashilmeen in ay kala dhex galaan maleeshiya beeleedo oo ku dagaalamay. Dadka deegaanka Ceel Afweyne qaarkood ayaa waxay sheegayaan in ay dareemayaan cabsi dagaal isla markaana goobaha qaarkood ee ganacsiga ay xiran yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa shalay sheegay in la qabtay qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay dilkaasi oo sababay xiisadan maanta ka tagan Ceel Afweyne. waxaanu leenahay ilaahay ka yaaba, ilaahay ka baqa, ilaahay ka cabsada, war dhiiggiinnana ay isu xalaashateen ilmaad reyaalow joojiya oo intaydinla dhalatiyo intaydinka naxaysaba maalin walba naxadintan iyo dhiilladan colaadeed iyo dhimashadan soo yeedhaysa war ilmaad reyaalow ka baxa. ilaahay waxaan ka baryayaa intii ku dhimatay dagaalada dhammaantood bayn ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo. Korneel Siciid Cawil Jaamac Korneel Carre oo hogaamiyo jabhadda la magac baxday Dulmidiid ayaa faahfaahin ka bixiyay wadahadallo uu kula jiro Somaliland. Korneel Carre ayaa mar kale xaqiijiyay in labada dhinac ay u socdaan wadahadallo guul laga gaaray. Wuxuu shaaciyay in la isla gartay 3 qodob oo muhiim ah, kuwaasi oo kala ah in nabad la raadiyo, in xabad joojin la sameeyo, in wadahadallo loo fariisto. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan odayaasha dhaqanka garwadeenka ka ah wadahadallada u dhaxeeya shaaciyeen in Korneel Carre uu aqbalay in uu la heshiiyo maamulka Somaliland. Carre oo horey uga soo goostay Somaliland ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ciidanka maamulkaasi kula dagaalamaya gobolka Sool. mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxay la kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo Saliya Nuux uu ka dambeeyo. Horay inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii, waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay, waxaan la joogaa ehelkay. goorsidii garxajisay iyo timi salaadiintii iyo boqorradii waxaanu heshiis ku gallay in nabad la helo. kow number 2 waxaanu heshiis ku gallay in xabad joojin la sameeyo. waxaanu heshiis ku gallay in wada hadal la furo. jabhaddan Justice Equality Movement Dulmidiid waxay u taagan tahay jabhad hubaysan, siyaasadeeda wadata, eeldariskeeda leh, golaheedii dhexe leh. ma aha qof qoorta la soo qabanayo la hogaaminayo. haddii ay 2 baarti soo qaybsameen, qaybina Hargeysa qabatay, qaybina fadhido Ceergaabo, oo ay suurto gelin waayeen arrintii aan ku ballannay, qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii alla yidhaaho. inanka yar Cabdiraxmaan la yidhaaho ee suldaanka ah ee hore u aflagaadaynayay boqorrada, hore u aflagaadaynayay boqorrada, ee jaaliyadaha aflagaadeeyey. aad iyo aad baan jaaliyadaha uga xaalsinaya arrintaa. ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan. ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo, waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doona haddii alla yidhaaho. wuxuu ka shaqayn jiray, wuxuu ahaan jiray, dib baa loogu noqonayaa. waxaan u qabaa inuu fashilmayo
maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhadda meel walba